iyadoo maalmihii u dambeeyay si weyn saadaasha hawada looga sheegayay inay dii doonaan roobab aad u waaweyn ayaa maanta kood iyo barkii duhurnimo waxaa magaalada Berbera ka bilaabmay roob socday 30 daqiiqo in ka badan roobkan ayaana biyo badan ay ka dhaceen waxaana arkaysay magaalada gudaheeda ama laamiyada oo ay biyuhu si weyn u qulqulayaan dooxa ku yaala bartanka magaalada Berbera ee la yiraahdo Farjano ayaa isaguna si xawli ah u soo rugmaday kaas oo 10kii sano u dambeysay aan la arag biyo inta leeg oo ka soconaya badiba xaafadaha magaalada ay koonayaasha ayaa biyuhu fadhiisteen sida uu sheegay duqa degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidina waxa ku soo jabay dooxa loo yaqaan Farjano halkaasi oo dooxu soo jabsaday mooskii weynaa ee magaalada kaga xayndaabnaa dabcan roobkan balaaran ee maanta daay ayaan wax khasaare nafeed ah geysan lamana soo sheegin wax guriga ah oo dumay inkasta oo uu qaaday ilaa 8 baabuur oo yaryar kuwaasi oo arkasaan in uu badda ku dari gaadhay baabuurtan ayaana yaalay baakino u dhow dooxa Farjano haddaba qaybaha kala duwan ee magaalada oo aanu marnay ayaanu waraysiyo gaar ka soo qaadnay xaaladda roobkan iyo waliba sida ay waxyeelo uga soo gaadhay dhibeed la kulantay waxa dib la kulmay horta waxa ugu jira labada qolba ku jira labadii qolba way buuxaan maxaan aday raashinkii yaraa guriga yaala wuu qoyay carruurtii yar gogoshii kulli halkaas ku wada qoydo dib meel alaaliya meel isla taagamahay oo koos carruurta ku dabaalaamay gurigana ka taaganahay markaan cagaha ku hayna ku dhex jirno oo kala weeyaan dawladda hoose horta nimcada Ilaahay baa hayee waxaan ka codsanaynaa in horta burgurna degdegan oo soo diraan aan carruurta yar meel aan geliyo meel aan kaxayna toona garanayna marka waxa u baahan in biyihii imika la iska dhax qaado marka hore maxaa biyo horta gurigayga si yihiin waxa gurigayga waa ka maxaa raadayay meel alaale meel sal isku taagamale waa ku halka waran kala kadinkaasi ka galano xaga koonay ka soo galeeno labada qol way buuxaan jaarkiina ma kula qaban mise waxa ila qaba heerkaas soo jeeday la qaba oo saas si laag iyaguna ma jireena xafada jaarka hadda inaad u wareegtaa kuna santa biyaha la iska sii deynay horta gurma maxaa ku gaar horta bare waxa meelan dhuxan dhinaca u dhigo ma hayeen wallahi billaah insha Allah horta nimcada Ilaahay baa daaday nimcada Ilaahayna nusqaaniyo khayr buu leedahay saadiradeed halka wax ku godoonsan intaas biyo ku xirmay halkan deyr baa soo mara marka waxaan ku codsanaynaa dhamaanba maamulka gobolka iyo maamulka dawladda hooseba inay xaafadan gurmad soo sameeyaan biyahana laga qaado sidaa daradeed waxaan aad u codsanaynaa maamulka gobolka iyo mas'uuliyiintiisa in xaafada gurmad loo sameeyo marka waxaan doonayaa in la ilaaha ma ka qaxa yaama biyana laga baneeyo afarta reer baa imika bilaa guri roobkii waa markaa ay godol idinka dhigay roobkii baa godol laga dhigay imika saldhigaan doonayaa dumarkii carruurta ku haray caawa guri la galayaa ma jiro yaasiino maanta roob bay inoo daay wanaagsan oo nimcooyinka Ilaahay ka mid ah alxamdulilaahi rabbil caalamiin roobabka waxaan xasuustay maanta anigoo ka mid ah dhalinyarada magaalada muddada badan joogtay 1997 roobkii daay ee reer miyiga oran jireen biyo badan waxa ku xigay roobkii inoo daay 2013 ee labada habeen iyo labada maalmood ay bilaaleedka ahay roobka maanta inoo xigay dooxa waxa uu soo jabiyay moosaska markasta uu doo roob badan dooxan waa dooxii Farjano yaasiino waa dooxii Farjano marka Farjano haddaad aragto soconayo roob xooga magaalada ka daay oo wax Ilaahay loogu mahadnaqo wax khasaara ah lama soo sheegin aniga gaarigaygu halkan u taagnaa iga dambaysa dhowr qof baa ila soo hadlay war gaarigii soo carad dooxii baa qaadayee nasiib wanaag isagoo waxba noqon baa soo gaaray waan ka qaaday laakiin halka hore yaalaan baabuur badan oo doox u qaaday wuxuu aan loo gaarsiiyay biyihii un baan lagu soo jabay ayaa wada ay ka bixi jireen tog ay ka bixi jireen biyuhu lagu xidhay dabad biyihii gabigoodii guryihii bay dub galeen marka waxaan ka codsanaynaa haddii maamul jiro maamulka dawladda hoose iyo DB walba haddii uu jiro inay gurmad degdeg ah iyo cagafyo nala soo gaaraan si ay nooga furaan biyaha gurigayga waa kan ka soo baxay qabso horta baalka sidaa yahay ay waa ka soo baxday waan ka soo baxay carruurtii meel aan geeyo u malay haye marka alxamdulillah rabbil caalamiin nimco Ilaahay noo keenay waxa uma oran karnaba ayna meelna na geeyo oo deena noo gurmada ayaan doonaynaa insha Allah yeen biyaha la iska sii daay bismillah yaasiin horta roobkan maanta daay waa roobkii daybto waa la filayay Berbera roobabku inta badan way ka raagaan laakiin markay daan dee roobab badan baa ka daay roobkanina waa roobka daay saylanka aan waxba yeelin iyadoo aan magaalada wali iska warhayn oo aynaan dana badan baa magaalada ka dhacay waxyeelayna wali ogaanin haddana wax inoo muuqda baabuurta imika halka taalle oo qaaday daadku maynu aragnaa
وانا روب حوغا سيده saadaashu sheegaysana waa la filayaa roobabku inay wiigan oo dhan daayaan ilaahay hay nooga dhigo mid nabad qaba maanta noocabu roob wanaagsan baa daayay ilaahay maada ka gaadhay wax khasaaro in noo soo sheegay ma jiro waxaanu ag taagnahayna waa farjanno wali cid tiri waa dad inta leeg oo marta waa loo koob farjanno mooyaane cid kale ma aanan arag roobka maanta daayay waa ilaahay alxamdulillah ilaahay nusqaantiisana inaga hayo shacabkana wali wax dhibaato la soo gudbiyay ma hayno haddaad ku bilaabo halka waxa yaalay hal gaari kale hal gaari oo kale halka yaalay waxa kale ku keenay meel aan ka fogay halkan goobta laakiin waxa caawiyay waa kaawadahan marka inta kale sidoo meesha la soo maray si la soo kaawadaha qabta tirada gudaha baa fahmaysa waa state gaari sideed baabo state baabo marka ubada ku daray maraa wixii banaan ka yaal wuxuu banaan ka yaal laakiin ilaahay oo saalay ataan kaawadaha socda ilaa ma arkay ka waran meheradihii dooxa xaqiisiyay meheradaas door meherado bad ku daray door meherado uu qaaday laakiin kuwa kale oo ka badbaaday laakiin wax ku noqdo ma jireen cid wax ku noqdo ma jirto bismillaahi raxmaani raxiim xaaladan baabuurtan imankan nimca ka dhacday nimco waa barakaysan yihiin waxba ma aha inta yareen la soo gaadhay waan insha Allah waan ka soo kabanaynaa waan hagaajin doonaa waxaan kale roobkana nimca weeyaan qasaaruna uu iska yimaadaa waana la filayay insha Allah kuwa ay wax ka badan dhici doona insha Allah waa laga dabaalan doonaa in dhaweyd kama jirin roobkan oo kale baabuurta baarkiinkan bay yaaleen baarkiinadan bay yaaleen waa baabuurtii shaqaalaha inankan waxaan malaynayaa waa inan ganacsadaayo ka ganacsanayay gaarigaasna waa nin shaqaalaha dekedaa baa leh insha Allah waa ninka liftar yar baa loogu yeeray waa la qaadayaa labada gaari ka mid waa isku mid kee hadda waa gaarigaagiba magacaaga sheeg bismillaahir rahmaanir magacay waa tabaarig casriga qadarka shilka ilaahay horta inoo saaray gaarigaygu baa inta qaba inta kale la saddexda gaadhin bay wax soo gaareen waa kan waa gaariga yare tartiibta waa ka soo qaaday markaa halkaas aan kaga tago markaa kaga tagay bahasha saa dhacday maxay kaabada saa dhacdo markaa aan dekada ku jiray markaa maxay ahaydeen saasan imika ugu yimaaday alxamdulillah laakiin kaygu ma wax badan qabo kala ma qabo markaa waxa weeye gaarigaada lahaa dadka agdiga weeye dooxyana waa laga fogaadaa waayo roobka halka 100 sano helo ayuu haddana helaa markaa sababta waxa leh dadka leh markaa dadka waxa leenahay roobka ka fogaada waa waxyaabo badan buu roobku leeyahay dhib badan buu leeyahay Ismaaciil oo dadka waa looga digay roobka ilaa shay waa la sheegay waxaan sheegaynaa dadweynaha waxaan sheegaynaa wixii ka dambeeya inay ka taxadiraan oo meelaha dooxyada inay gawadhidoo dhigan kuwaas dooxyaha ayo shaqaalaha haayeen dooxay tagay gawadhidoodii wixii dambeeyay dooxa dhigan xildhibaan aadan dheere oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Berbera ayaanu isagana la kulanay isaga oo dhex wareegaya xaafadda Xuluunka halkaasi oo biyaha ugu badan ay fadhiisteen dadkii xaafadaasi deganaana intooda badan ay ka cabanayaan alxamdulillahi rabbil caalamiin halka waxaa aragtaan maanta Berbera roobkii muddada dheer ka maqnaa ee nimcada ilaahay nagu shubay laakiin halka waxaa ka muuqata xaafadana arkaysaan in biyihii afka uga galeen daadkii daad badanna waa soo socdaa sida arki doontaan daad badan baa la tusi doonaa dadweynaha waxaa leeyahay ka diyaar garooba inta awoodiina dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka waxaan leeyahay heegan gala iyo fulinta maayarka xogeenka xoghayaha dhammaan shaqaalaha dawladda hoose waxaa leeyahay heegan gala intii aynu ka bannayn karro waa inaynu ka bannayno eegtaalkeenna dadweynaha waxaan leeyahay waa nimco ilaahay keenay ilaahay nusqaanteeda haynaga hayo waynu dul qaadanaynaa waynu samraynaa ilaahay baynu baryaynaa ilaahay nimcada nusqaanteeda inaga hayo biyaha meesha fadhiya hadda adna balleehan u dhex joogto meel ka baxaan bay leeyihiin haddii alla yidhaahdo maxaa ugu sameyn weydeen meel biyo ka baxaan waa samaynaynaa waa furaynaa
waxa had iyo jeeraale reer berbera haddaynu nahay kuma tala galno roobka guryaha barwaaqiyo daaroole dushooda waad arki doontaa oo imika la fuushay yahay marka hore inaan ku tala gelin roobka dawladda hoosaan laakiin meelo badan baan ku tala galay meelihii baa isxilaya marka muddo badan roobku iman waayo imikaanu heegan gelaynaa buuraa imikaa la furayaa duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo isaguna intii roobku u daayay gaafareegayay xaafadaha kala duwan ee magaalada ayaa isaguna goobaha ugu halasaysan ee biyuhu fadhiistaan soo gaadhay sida xaafadda xudhuunka waxaan u sheegay in biyaha fadhiistay si degdeg ah looga sii dayn doono iyadoo dadka xaafadaha intooda badan ay ka wada cabanayaan biyahaasi raxmadaan siiyey ilaahay baan u mahadnaqaynaa roob aan dhibaato noo geysanin ayaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa magaalada wax dhibaato ah oo waxyeello ah oo ka dhacay haba yaraatee ma jirto marka laga tago inuu guri walba biyuhu galay guri kasta oo magaalada ku yaala ama ha weynaado ama ha qurux badnaado ama ha yaraado ama buulahaada dhammaantood ilaahay wuxuu ka sameeyey inay biyuhu ku jiraan marka shaqada qudaan haynaa waxa way xaafadda Samwanaag oo biyaha magaalada ku soo ururaan drainage system aan lahayn maxaa ku magaalada dhismeeduna uu soo xiray biyaha ku soo xiray ayaan biyaha ka saarinaa aad iyo aad baan magaalada raxmaddu waxay sima tahay awoodaha ilaahay isaga iskale ma maamuli karo basharka awoodaha ilaahay laakiin waxa yar isaga yare ka daadaato ka shaqeeya marka daadku wuxuu ka yimi dhinac walba uu ka yimi magaalada dusheedu ka yimi biyo badan oo daad ayaa magaalada soo galay alxamdulillah waxa dhibaato ah ay bulshada u geystay ma jirto xaafadaha ku soo sabti ay leeyihiin caruurta balagina ma hayo maxaa waay saaran horta ilaahay baa subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqaa waxaan aaminsanahay inaanay wax dhibaato jirin markuu roobdaana waa la qarqaraa waagaa la qalatistaa waxaan leenahay bulshada furaashaaga tuujiso gurigaaga qalatiso nadiifsano biyaha u markaa saaran laga digin maalmihii u dambeysay dadka ka digisay ka dawladda hoosaan iyadoo qudada bulshada reer berbera waxaa faraysa maadaama iyo qabaadkii jiraan waxaan aad ugu adkaynaynaa qadarka midna waa taqaanaa midna ma taqaano haddaa waddada fadhiisato highwayga waa taqaano gaari ku jirayo laakiin ma taqaano goor gaari ku jiri doono waxaan uga digaynaa oo ku celcelinaynaa guryaha xaafadaha barwaaqo iyo daaroole iyo dooxyada biyo mareenada la yaqaano dadka degan inay mar walba ka fogaadaan kana feejignaadaan وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي بولشة تيفي مقالة بربراء macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadala maasha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121